رئيس الوزراء أبي أحمد حكومة إثيوبيا ayaa ka hadlay xiisada u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Kenya xilli toddobaadkii u dambeeyay ay Kenya qaaday tillaabooyin aan dhanka diblomaasiyadeed iyo derisnimo loo amaanin oo ay kula kacday mas'uuliyiin iyo sidoo kale shacab Soomaaliyeed. Abiy Ahmed oo bishii February dhexdhexaadin u sameeyay madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ee labada dal ayaa mar kale sheegay in xal u raadin loo sameeyo xiisada taagan. ninkan la sheegay in isbedel dardar leh ku socdo ku soo galay siyaasadda Ethiopia iyo guud ahaan midda geeska Afrika ayaa waraysi uu siiyay ilaanta afka maxaarada ee VOA waxa uu kaga hadlay caqabado badan oo wali maamulkiisa hor taagan mar uu soo hadal qaaday Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu yiri Soomaaliya iyo Kenya makaakal yaaloon chigri wasan doona waxa uu yiri haddaan soo qaadno xiisada Soomaaliya iyo Kenya waxaan u baahanahay Eritrea Suudaanta Koonfureed iyo Ethiopia inaan u istaagno xalinta dhibaatada u dhaxaysa. Abiy Ahmed ayaa hadalkiisa ku daray waxaan ognahay in dhibaato kasta ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay saameynayso gobolka oo dhan. madaxa xukuumadda Ethiopia ayaa markii uu ka hadlayay xal u raadinta xiisada waayahan u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya kuma uusan soo darin dalalka xalka u raadin doona Djibouti taasi ay dad badan su'aal ka keeneen. sidoo kale ma uusan shaacin waqti cayiman iyo qaabka ay u wajahayaan dhexdhexaadinta loo sameeyo Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayaa lagu eedeynayaa in ay isku dayayso caburinta Soomaaliya si looga soo laabto dacwadda badda taale ee u dhaxaysa labada dal. sidoo kale Ethiopia ayaa toddobaadkii u dambeeyay si gaar ah maalmihii la soo dhaafay toddobaadkii tagay waxa lagu eedeynayay in ay ku xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ethiopia dhowr jeer lagu daabacay gaf Soomaaliya loo geystay.